maamulidda mashaariicdu waa hawl u baahan aqoon, karti iyo dadaal si loo gaadho ujeedada laga leeyahay mashruuca iyadoo lagu jaangooynayo waqtiga iyo lacagta loo qoondeeyay. waqti waxaa jiray la isticmaali jiray qalin, warqad iyo hab la isla yaqaano si loogu maamulo mashaariicda, waxaana lagala kulmi jiray culays xooggan oo soo waajaha maamulayaasha mashaariicda. haddase waxaa loo gudbay hab fudud, ka kooban xagga waqtiga ugana dhow xagga saxsanaanta. iyadoo ay badatay aqoonta loo leeyahay isticmaalka teknolojiyadda iyo barnaamijyada loo isticmaalo maamulidda mashaariicdu, haddana waxay daraasaduhu sheegayaan in mashaariicda Afrika u fashilmaan aqoon darro 70%. si loo kordhiyo aqoonta maamulidda mashaariicda, waxay Kaafi online training ku bilaabaysaa mid ka mid ah barnaamijyada lagu maamulo mashaariicda oo soo saartay shirkadda Microsoft Office Project 2007 wuxuu ka mid yahay barnaamijyada loo yaqaano Office Family. barnaamijkan waxaa isticmaalay in ka badan 20 milyan oo qof, waxaana loo qorsheeyay in lagu horumariyo, lagu qoondeeyo baahiyaha, lagula socdo horumarka, lagu daabaco warbixinaha, laguna maamulo kharashaadka mashruuca guud ahaan. barnaamijkani waa mid fudud xagga warshada, waxaana lagu isticmaali karaa mashaariicda yaryar ilaa iyo mashaariicda ay ku baxaan billions. inta aad barnaamijkan ku guda jirto waxaad baran doontaa si waafiyan aad u baran doontaa sida loo isticmaalo barnaamijkan, sidoo kalena waxaad ku qorshayn doontaa kuna nashqadeyn doontaa mashruucaaga, waxaanad ku qaadan doontaa sidoo kale barnaamijyo practical ah oo aynu ku wada samayn doona si wada jira. Kaafi online oo hay'adda barashada tacliinta online-ka gaar ahaan teknolojiyadda iyo engineering. haddaba si aad uga faa'iidaysato barnaamijkan kuna anfaco inta mustaqbalkaaga ka hadhay una maamushid mashruucaaga si waafiya, waxaan iska diiwaangelisaa halkan kaafi-online.com ambaba page-ka adoo la xiriiraya nambarka WhatsApp-ka ee ku muuqda. barnaamijkan waxaa ka faa'iidaysan kara dhammaan maamulayaasha mashaariicda ee kala duwan, injineerada ka shaqeeya mashaariicda dhismayaasha, iyo dhammaan cid kasta oo xiriir la leh mashaariicda horumarinta.